waxa uu ahaa nin qamrada ayuu aad iyo aad u jeclaa waxa uuna doonayay qamrada in loo xalaaleeyo asagoo oo qiil u raadinayo ayuu waxa uu la kulmay Ilyaas bin Mucaawiya waxa uu ku yiraahday Ilyaasow haddii aan biyo cabo ma dhib ayaa ku jaban waxa uu u jawaabay Ilyaasna maya oo dhib kuma jabno waxa uu yiraahday waa yahay haddii aan timirta cuno dhibaato ma ayaa iga imaanayo oo ma la dilaya Ilyaas bin Mucaawiya waxa uu yiraahday maya oo Ilaahay ayaa ku xalaaleeyay waxa yiri waa yahay haddii aan labadooda isku daro ay qamro isku noqdaan oon cabo maxaa la ii dilayaa waa laba shay oo xalaal ah oo Ilaahay ii xalaaleeyay Ilyaas bin Mucaawiya waxa uu jawaabay warniyahow haddii aan biyo kugu shubo biyahaas dhiig ma ka keenayaan laf ma ku jabinayaan dhibaato xanuun badan miyaad kala kulmaysaa waxa uu yiraahday maya waxa uu yiraahday waa yahay carra haddaan kugu shubo laf ma ka jabaysaa waxa uu jawaabay maya oo laf iga jabin maayaan okay waa yahay oo yiraahday haddii aan labadoodii isku daro oo isku walaaqo carradii iyo biyihii markii ay dhoobo noqdaan aan qoraxda dhigo markii ay qalalaan oo qaleel rasmi noqdaan haddii aan kugu dhufto ma ku daqrayaan mise ma ku daqrayaan wuxuu yiraahday way daqrayaan waxa uu jawaab marka sidaas ay la mid tahay oo markii la isku daro dhibaatada